iyo waxyaabihii ka soo baxay waxaanu isu nimid arrinta xalinteedii wax badan oo runtii horukaca ayaa ka gaarnay waxaana lagu heshiiyey in dhammaan dhacdooyinkaas marba mid la xaliyo horay waxaa loo xaliyey oo heshiis iyo safgarad loo gaaray qaybtii horena la bixiyey dhacdooyinkii bariga magaalada Gaalkacyo ka dhacay oo 3 qof oo ehelka ah ama walaalaha ah ay ku dhinteen oo xoolo dhaqatada ah 5 qof oo dambana waxaa looga ballamay in mid walba markiisa la xaliyo odayaashiina aad iyo aad ba qolo walba waxay ugu helanayd in nabadda Gaalkacyo la sii adkeeyo Gaalkacyo mid ahaato Gaalkacyo amnigeeda wax kasta oo ifurti ama dadaal ah oo la wada gelin karo la wada geliyo aniga iyo Maayir Cabdiraxmaan waxaan go'aansanay inaan ku hogaamino odayaasheeda sharafta leh oo runtii muddada dheer ee magaalada Gaalkacyo la soo wada deganaa sida ehelnimada leh sida sharafta iyo karaamada leh u soo wada noolaa inay maantana wada noolaanshahoodii iyo muxuu ahay tool arrimaha dhexdooda ah ay ku xalistaan aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa antay kulan ba halkan looga qabsaday kulamo hore oo soo socday oo lagu soo xaliyay ama looga soo wada hadli jiray dhacdooyinkii ka dhacay runtii gobolka Mudug ay ugu horeysay degmada Gaalkacyo ka dhex dhacday Higlaceelle Boqoraas iyo runtii arrimahaas fadhiyo laga soo yeeshay sidoo sheegay arrintii Boqoraas waxay noogu dhamaatay si sharaf leh waana kaga mahadcelinaa odayaashii qiimaha badnaa ee aqbalay in arrintaas si wanaagsan looga xaalo aqbalay shariicada islaamka waxa ay jideynayso in la qaato aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa arrintaas waa la soo xaliyay maanta waxaan isugu nimid dhacdadii magaalada Gaalkacyo ka dhex dhacday oo 2 qodob ahay qodobkii koobaad inaan galno ma sha Allah si wanaagsan oo qurux badan ba runtii wax noogu bilowdeen biidnillaahi tacaala gabagabadiisana waxaan kaga ballanay 22 bisha maanta waa 18 bisha Abriil 22 maalinka ay tahay oo ku beegan maalin Arbaca ilaahay idinkiisa inaan halkan kulan kale iskugu soo noqono laguna soo afjar dhacdaas biidnillaahi tacaala